way dhacdaa badanaa dhibaatadan haysata inaan ku eedeyno qof kale ka hor intaadan dhaliilin qofka. Horta adiga ma tahay qof dadaal bixiya? Ma u tahay active oo u firfircoon sida lamaanahaaga yahay? xiriirka macnihiisa ma ahan inaad baranayso sida qof loo jeclaado, sidoo kale waa khibrad aad ku noqonayso qof wanaagsan. hase yeeshee marka qaar intaadan qof eedeyn waa muhiim inaad marka hore ka shaqayso horumarinta naftaada. haddaba ii ogolow inaan kula wadaago 5 calaamadood oo muujinaya inaadan xiriir maarayn karin. 1. dantaada ayaad qof kasta ka hormarisaa. waa wax wanaagsan inaad mudnaan siiso naftaada iyo caafimaadkaaga, laakiin waxaa jira farqi u dhexeeya inaad hesho isu dheelitirnaan iyo inaad noqoto qoftiisa uun ka fekera. daraasado psychology ayaa tilmaamaya dadka badanaa selfishka ah ama tooda uun daneeya ay dareemaan mar walba ku filnaansho la'aan. xitaa marka ay qof kale jecel u muujinayaan waxay ka walwalaan inuusan jacaylkaasi baaqi sii ahaanin. haddii aad tahay shakhsi intuu bixiyo in ka badan ka qaata lamaanihiisa, waa muhiim inaad dib isu jileecdo oo aad horumariso meelaha aad ku liidato si xiriirka balance u noqdo. 2. waxaad tahay qof isla weyn isuna haysta inaad mar walba saxan tahay. waa muhiim in labada lamaane xiriirka ka dhexeeya inay ismaqlaan oo ay isfahmaan, laakiin haddii ay isla weyni jirto arrimahaasi ma dhici karaan. ugu dambayn, ma habboon tahay inaad isla saxan tahay keliya aad ku weyso qof aad jeceshahay. sabab kale oo ay dadka uga labalabeeyaan inay raaligelin bixiyaan ayaa ah iyagoo ka baqaya inuusan qofka kala qaadanin mas-uuliyadda qaybtiisa khilaafka. hase yeeshee marka aad si dhab ah raaligelin u bixiso, waxa uu lamaanaha ogaanayaa inaadan ahayn qof isla weyn khaladkiisana ku qanacsan, taasoo iyadana keenaysa inaad khaladkaas oo kale mar kale ku dhicin. maahan in lagu celceliyo yaa saxan iyo yaa khaldan, beddelkeed diiradda saara waxa aad labadiinuba qaban karaysaan si aad uga gaashaamataan khilaaf kale oo yimaada. 3. mar kasta waxaad tahay qof ku tirsan lamaanihiisa si uu farxad u helo. ma tahay qof walaaca marka aad ka maqan tahay lamaanahaaga, ama ma dareentaa inaadan la'aantood joogi karin. tani waa calaamad muujinaysa inaad tahay qof codependency ah ama qof aan keligiis isku tirsanaan karin. isweydii, lamaanahaaga ma jeceshahay mise emotion ahaan ayaad isaga ku tirsan tahay? jacaylka waa isqadarin ee ma ahan islahaansho. inaad keliya ku tirsanaato lamaanahaaga ayaa waxaa badanaa sabab u ah qaar ka mid ah baahiyahaaga carruurnimo oo aadan soo helin. waxaad u baahan tahay inaad baahidaada daran aad xadido, sidoo kalena aad la tashato qof ku takhasusay arrimahaasi si aad wax badan u ogaato. 4. qofka lamaanahaaga waxaad ka rajaynaysaa inuu maskaxdaada aqriyo. communicationka ama wadahadalka wuxuu muhiim u yahay xiriirka inuu hore u sii socdo. haddii aad tahay qof aan wax badan la wadaagin lamaanihiisa, adigoo ka rajaynaya inuu aqriyo waxa maskaxdaada ku jira, sida waxa aad ka murugaysan tahay ama aad ka xanaaqsan tahay, adigoo ka baqaya inuu khilaaf dhaco, ama isleh tijaabi inuu ku daryeelayo in kale. haddaba ma cadaalad baa inaad u xanaaqsanaato lamaanahaaga xilli uusanba wax war iyo wacaal u hayin waxa ka socda maskaxdaada? 5. waxaa kugu adag inaad si dhab ah uga go'do xiriirka. dad badan ayaa leh waxa loo yaqaano commitment phobia ama walaac iyo cabsi ay qabaan inay xiriirka u go'aan. haddii aad tahay qof noocaas ah, micnaheedu ma ahan inaadan diyaar u ahayn inaad dhisto xiriir waqti dheer soconaya, laakiin walaaca aad qabto ayaa kuu diidaya, taasoo sababteeda ay leedahay boogo ama dhibaatooyin hore kuu soo gaaray, sida adigoo u soo joogay waalidiintaada oo isfuraya ama xiriir aan wanaagsanayn oo aad horey ula soo kulantay. natiijadu waxay noqotaa inaad mar walba ka labalabayso inaad u go'do xiriirkaaga, adigoo ka baqaya in qofka kaa tegi doono ama ku xumeyn doono. haddii arrinkaasi yahay mid aan kaa dhammaanayn, waa muhiim inaad la tashato dhakhtar, psychologist ama qof ku takhasusay arrimahaasi. sidoo kalena waa inaad xasuusnaataa waxyaabihii aad horey ula soo kulantay, waa inaadan marna ku dabaqin waxa aad hadda joogto. haddaba ma jiraan qaar ka mid ah calaamadahan oo aad isku aragtay? nagula wadaa fikirkaaga qaybta commentiga. sidoo kale ha iloobi inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, gambaleelkan aad furato si aad ula socoto muuqaalka xiga. mahadsanid.